dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaamiyay madaxweyne Farmaajo ayaa lagu eedeeyay inay ku fashilmatay qorshaha dhanka ammaanka madaxweyne Farmaajo xilligii ololaha doorashada waxa uu balan qaaday in qorshaha ammaanka dalka 2 sano loo dejiyay isla markaana dagaalyanada xarakada al-shabaab dalka loogu saaray muddadaasi dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal laakiin ma moodid dowladdu inay dagaal ku jirto waxa weeye dagaalku wuxuu ka socdaa oo kaliya hal dhinac shabaab baad meeshii rabta weerarta shabaab baa meeshii rabta qarxisa waxaan haynaa oo kaliya ama dowladdu ay haysaa tacsi iyo cambaareen dagaalku wuxuu noqonayaa laba geesood waa isu tageynaa ama hadday nabad qaataana waa fiican tahay haddii nabad qaadanna shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan xildhibaanada dowladda kulli waa dagaal galinaa maxaa yeelay nolol nooma diidi karaan nabadna nooma diidi karaan balse maanta 2 sano iyo bar kadib shabaabku waxay wali awood ku leeyihiin qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho saameynta ay ku leeyihiin dalka waxa cadeen u ah muddo 45 bari ay u qabteen qaar ka mid ah ergooyinkii soo doortay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya halka qaar ay naftay dhaafsiiyeen magaalooyinka Bu'a Qable iyo Buulufulo ee gobolada Hiiraan iyo Baay ayaa lagu soo bandhigay ergooyinkii doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka yimid maamulada Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed Jubbaland siyaasiyiin iyo xubno dawladda la soo shaqeeyay ayaa ka midaysan in dawladda federaalka Soomaaliya ay la imaan weysay qorshihii lagu sugi lahaa ammaanka dalka taasi bedelkeed ee wali shabaab iyo awood ay ku leeyihiin qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku fashilmatay amniga dalka isla markaana shabaab wali ay maamulaan magaalada Muqdisho waxa uu sheegay al-shabaab sida ay rabaan ay magaalada Muqdisho ay ka sameeyaan isla markaana ay gaareen heer ay canshuur ay ka qaadaan dekada magaalada Muqdisho alaabaha ka soo daga dawladda federaalka Soomaaliya ayuu ku eeday in ay la imaan weysay siyaasad cad ay kula dagaalanto al-shabaab taasi bedelkeeda ay weerar ay ku tahay mucaaradka iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ka jira socotiin al-shabaabku inay aad u dhex galeen hay'adaha dawladda gaar ahaan kuwa amniga iyo hay'adaha dakhliga sidoo kale waxaan la soconnaa oo dhammaanteen ogtihiin inay canshuur ka arursadaan qaybo kala duwan oo ka mid ah ganacsiga dadweynaha Soomaaliyeed iyo meelaha ay dawladdu gacanta ku hayso ugu weyn tahay dekada ay ugu horeyso waxaad ogtihiin in al-shabaab ay canshuur ka qaadaan container kasta oo dekada yimaada oo xogta aan haynana ay sheegayso inay containerkii 40 feet ahna ka qaadaan $160 kii 20 feet ahna ay ka qaadaan $100 waxay kaloo al-shabaabku helaan xogta la xiriirta arrimaha dhaqdhaqaaqa dekada oo waxay awood u leeyihiin sida aan xogta ku hayno in ay helaan waxa ka soo dega dekada waxa ka soo degaysaa ogtihiin mara shirkadaha soo rara alaabta shirkada Turkiga ee Albayrak ee dejisa dekada gacanta ku haysa iyo kuwa xamaalka dekada ka dhura intaba ka rara saddexdaas ba biilasha ay ka soo dejiyaan dekada al-shabaab gacanta ay ku haystaan waxaan haynaa oo la kulanay ganacsato Soomaaliyeed oo markii la weydiiyay inay bixiyaan dakhliga ama cashuurta ay shabaab ka rabaan la soo hordhigay wixii ay dekada kala soo degeen oo la yiri waxaan la soo degteen al-shabaab hadda waxay marayaan in meesha la yiraahdo tuulada Mubaarak la yiraahdo qof kasto ganacsada wax la soo dega fayl looga furo registration number la siiyo fayl halkaas uu ku leeyahay ay hadda ay maraysaa waa arrin runtii aad iyo aad looga naxo waxay kaloo marayaan inay qaadaan wax la yiraahdo domestic revenue canshuur aruurin gudaha dalka ah oo ay ka qaadayaan dalagga beeraha sida liinta la dhoofiyo oo ay ka qaadayaan xoolaha la dhoofiyo oo ay waxay kala awood u yeesheen in contract kasta ama qandaraas kasta oo la galaa inay 5% canshuura ay al-shabaab ay ka qaadaan ma jirto nootaayo magaalada ku taala oo kala wareeji karta dhul ayadoona al-shabaab laga siinin kadkooda ama dhiilkooda baabuurtii gobolada aadaysa waxay ku guuleysteen inay ka soo leexiyaan jidadka ay kontroolaan dawladda ay u soo leexiyaan deegaanada ayaga ay gacanta ku hayaan si kaligood uga qaataan canshuurta waxaan ognahay hay'adaha NGO-yada ka howlgala dalka inay 30% hawsha ay qabanayaan ay ka qaadaan canshuuraha ay ka qaadaan waxaan ognahay inay odayaashii soo xulay ergooyinka u yeereen oo ay ku yiraahdeen
waxaa liinka rabaa hal qoray 4 boosh oo toobakeen ah inaad keentaan waxaan ognahay inay qabiilooyinka Soomaaliyeed heshiis la galayaan waxaan ognahay in dhaqdhaqaaqyada xagga dhaqaalaha bangiyada iyo xisaabaadka xawaadada dhan ay gacanta shabaab ay ku haystaan waxaan ognahay in oo xogteeda aan haynaa in ay shabaab dadkii qaarna handadayaan qaarnaba dhaqaale hadda ay ku iibsanayaan oo hay'adihii dawladda dhexdooda awal waxay ahayd inay dadka handadaan ama ay dilaan hadda waxay ku soo kordhiyeen inay dadka iibsadaan oo ay lacagta ay ka helaan dakhligaas oo dhan ay dadkii ugu fududeeyaan waxa ay rabaan waxaan haynaa in al-shabaab bishii 20 ilaa 30 milyan inta u dhaxaysa canshuur ah ay qaybahaas kala duwan ay ka aruursadaan waxaan ognahay in ganacsada Soomaaliyeed arintaas dawladdu uga dacwoodeen oo ay dhaheen arintaa wax ka qabta dawladdu ka dhiga furaysatay taleefanada ay ka soo diraan shabaab hadda artaan dadka markay wacayaan ma qariyaan nambarkeeda dawladda loo geeyay aysan talaab ka qaadaynin ganacsatada sameynaysa registrationka ama isdiiwaangelinta xagga canshuuraha mubaarak ka sameynaysa jagboontiyada ay dhaafayaan kuwii dawladda ay yihiin oo aan waxba laga qabanaynin oo arintaas ay xaqiiqo tahay waxaan ognahay in la hordhigay dawladda taleefanada dadka soo wactama oo soo waca dadka ganacsatada oo la yiri waa kuwan dadkana soo waca taleefanadooda ma qarsana oo wax tilaaba ilaa hadda dawladdu aysan ka qaadin waxa marka shaki weyn ugu dhaliyay waxa dalka ka socda ma la is og yahay shabaab iyo dawladdu ma dad xiriir oo is og oo wada shaqaysanaya mise tabardarra ayaa intaas keentay dawladdii inay heerkaas ay gaarto oo ay shabaab dalkii ay ka taliyaan Allahu naxariistay gudoomiyihii gobolka oo halka mar kale uga tacsiinayna markii la dilay gudoomiyaha gobolka asagoo xaafadda wardhigley oo haweenka ama dadka shacabka la kulmay laguma dilin asagoo xaafadda holwadaag joogo oo la kulmaya garoon isbatiiro ciyaar ku jira laguma dilin waan ognahay yariiso nin dhaqaaq badan oo socod badan oo dadweynaha aad ugu dhex jiro ahaa laakiin waxa lagu dilay xaruntii gobolka dhexdiisa lagu dilay waxaas waxa la yiraahdaa waa taxaddi ama waa challenge wax la yiraahdo waa car inay ashaabna leeyihiin oo ay saxataa qofkii ku beegsanayaan meeshii ugu dambeysay ee nabadgelyadiisa iyo securitygiisa ama amaankiisa oo ku ilaasho lahaa ay ku beegsanayaan ay xataa banaanka raasanayeen hadeertan waxaas oo dhan waxay keeneen waxa keenay dawladda oo wax istiraatiijiyada dagaalan al-shabaab aan lahayn oo wax aragtiya oo ay kula wajahaysa shabaab aysan jirin xajmiga iyo culayska ka imaanaya cadawga dadkeenii maanta nin doorkoodii ama hablahoodii doorka ahaa gumaadaya wax ay ka qabanayaan aysan jirin dawladdu waxay ku marquushan tahay siyaasiyiin inay la dirirto baarlamaan inay kala qaybiso maamul goboleed inay dumiso hawshii loo igmaday shacabka Soomaaliyeed oo igmadeen kuma mashquulsana